هذه مهمة oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Somali Times u sheegay in dawladda Itoobiya ay bilowday qorshe ay ku heshiisinayso dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Wararka ay heshay Somali Times ayaa sheegaya in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ay gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya isla markaasina ay ka wada hadleen arrimaha gobolka Gado iyo doorashada Soomaaliya. Addis Ababa ayaa lagu kulmay waxaana garwadeen ka ah Abiy Ahmed oo qaabilay labada dhinac waxa uuna ka dalbaday in Itoobiya ay xaliso arrinta gobolka Gado labada dhinac ay wakiishaan. Jubbaland waa ay diiday waxayna ku adkaysatay in ciidanka oo aan laga saarin Gado ay heshiis gali karin haddii ay dhici weysana dagaal dhici doona ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la hadlay Somali Times. haddaba ma jirto wax la isku fahmay balse waxa la qabaa rajo wanaagsan sababtoo ah waa qasab wada hadallada qaba doorashada ka hor maxaa yeelay labada dhinacba waxay diyaarsadeen ciidan awood leh dagaalna ayaana dhici kara ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la hadlay Somali Times. Jubbaland ayaan kalsooni ku qabin Itoobiya maadaama hadda ka hor ay weerareen Mukhtaar Robow oo Mansuur sidoo kalena la sheegay inay isku dayeen qabashada Axmed Madow waana sababta uusan ilaa hadda u aadin dalka Itoobiya kana cudur daartay casuumada kala duwan oo uga yimid ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed.